horeyn waxaan ugu hambalyeeynaya dawladda aan saaxiibka nahay ee walaalaha nahay munaasabadda 15 July oo maalin weyn oo shacweynaha Turkiga iyo dawladda Turkigaba ku dheer ah maalin loo bixiyay maalintii midnimada iyo dimuqraadiyadda oo shacweynaha Turkiga isu taageen inay difaacaan dastuurkooda sharciga difaacaan waxaan maalinta ku xasuusanaynaa kow dadkii u shahiiday inay ka hortagaan xoogagii isku dayayay in awoodda iyo dawladnimada iyo sharciga ay xoog ku qaataan laba iyo guushii shacweynaha Turkiga soo hooyeen dawladda Soomaaliya shacab iyo dawladba waxay isbarbar taageen walaalahooda Turkiga sida uu safiirku qirayna waxay ka hor yimaadeen xoogaga isku dayay inay awoodda dawladnimo sharci darro ku qaataan waxay u hiiliyeen dawladda Turkiga iyo shacweynaha Turkiga waxayna ahayd Soomaaliya dalkii ugu horeeyay ee isbarbar taaga kooxaha argagixisada ka mamnuuca dalka xiriirka dawladda Turkiga iyo shacbiga Turkiga iyo dawladda Soomaaliya shacweynaha Soomaaliyeed ka dhaxeeya waa mid taariikhi ah oo fac weyn ilaa dawladda Cismaaniyiinta tan iyo intii waqtiyadan dambe madaxweyne Erdogan oo xilliga ra'iisul wasaaraha ahaa iyo dawladda Turkiga u soo gurmadeen shacweynaha Soomaaliyeed xiriirka naga dhaxeeya waa si xoogaysanayay marka ka dambaysa waa si adkaanay waa iskaashi iyo saaxiibtinimo laba dhinac ah oo dhinaca amniga arrimaha bulshada iskaashiga dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo midowga labada dal ay ka midoobayaan mabaadi'da guud ay ka midaysan yihiin waxa kaloo mar walba walaalaheen uga mahad celinaynaa taageerada markasta ay wax dhacaan arrimo ama ha noqoto argagixisadu sababto ama ha noqoto mushkiladan hadda dunida oo dhan qabsatay COVID-19 sida Turkigu mar walba uu ugu soo gurmado walaalahooda Soomaaliya maanta shacweyne badan oo Soomaaliyeed baa ku nool Turkiga ama Istanbul ha noqoto ama Ankara ama magaalooyinka kale maal gashada dhalinyaro badan baa waxbarasho u tagta luqadda Turkiga aad bay Soomaalidu hadda u barataa iskaashi dhaqaale oo ballaaran baa jira marka waxyaabahaas oo dhan waxay muujinayaan sida uu xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya u sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa waxa Soomaaliya ka shaqeeya shirkado maalgashaday dalka dhinacyada waliba serviceka ama adeega sida dekedda airportka iyo dhinacyada kale dhaqaalaha oo ganacsato Turki ah iyo shirkado Turki ah waxa kale oo Turkiga ku wada jirna heshiiska maalgashiga ee laba geesoodka iyo guddida iskaashiga dhaqaalaha ama commissionka iskaashiga dhaqaale labada dal oo sanad walba ka shaqeeya horumarka iskaashiga dhaqaalaha iyo inta la gaaray iyo ganacsiga horumarka uu gaaray Turkigu maanta waa meesha ugu horeysa ee ay Soomaalidu u tagto waxa la yiraahdo health tourism يعني بوقشة عافيمادنا وكشرو عافيماد إسكاك صباري أما حالة عافيماد دق وين وعند ذلك جوديه سوى حلقة قبل كرين هدي أي موادين الصوماليين لسه جود بناتو مسؤولين الصوماليين لسه جود بناتو ذلك وجوهر هي الدور بلان وتركي وحال كان هذا سفير كتركي وقت حسيدين رئيس الوزراء إنه هراء صوماليا حسن أبشر فرح وسوى حالة عافيماد وجوجا تركيا أنقرة كوجيريودي waxay tusaysaa sida aynu isugu xidhanay Turkiga iyo Soomaaliya mar walba dhinac walba waxbarasho caafimaad iskaashi maanta Ankara iyo Istanbul Soomaalida waxay ugu jiraan halkii Roma iyo ay ugu jiri jireen London waayaha qaar waxay tusaysaa sida xiriirkeenu u sii xoogaystay waxaan leeyahay Soomaaliya iyo Turkigu ha guuleystaan ha wada jiraan waligoodba mid ha ahaadaan